kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin soo dhawaada waxaa horusii wadeena casharadii aan ku baranaynay performance management qeybada ah maalinta waxqabadka ACCA-da caawana waxaa baranaynaa concept cusub oo markaasi lagu magacaabo concept cusub oo markaasi lagu magacaabo principle of linear programming. Linear programming waxaa laga wadaa meel adeegsadaa faa'iidooyinkeedu maxay tahay intaas ayaa caawa isku daynaa inaan introduction ka bixino ogsoonow casharadan ma ahan casharo aan hal isku dul taagayno waa just mentoring program oo aan doonayna tipska iyo trickska inaan ardayda la wadaagno wixii akhrisa iyo revision ah haddii ay laga baahan yahay shaqsiga markaa sameynaya koorsaan. Linear programming waa technique markaasi techniqueaas oo loo adeegsado in lagu xalliyo problemska soo wajaho ganacsiyada shirkadaha iyo waxyaalo la midka ah kuwaas oo doonayaan in ay maximize gareeyaan faa'iidadooda inay mataqaanaa faa'iidada meesha ugu sareysa gaarsiiyaan sidoo kale inay dhimaan qarashaadkooda. Tusaale haddii kambaniga uu rabo inuu faa'iidadiisa meesha ugu sareysa u gaarsiiyo ama uu rabo qarashka meesha ugu hooseysa inuu gaarsiiyo wuxuu adeegsanayaa technique-an. Haddaba technique-an markaas lama adeegsado waxaa la adeegsadaa keliya markii ay jirto hal labo ama wax ka badan oo limiting factor ah. Limiting factor waxaa laga wadaa waxyaabaha xanibaya. Xanibaadda waxay noqon kartaa waxay noqon kartaa materialskaada ayaa xaniban ama laborkaada xaniban ama demandiga ayaa xaniban. Materialka waxaa weeye agabka galayo productiga ayaa xaniban oo markaasi sida aad u heli kartid waxaa laga yaabaa in 200 oo keliya heli kartid aan u baahan tahay intaas in ka badan. Waxaa laga yaabaa in saacado badan aad heli karin oo shaqaale ku yar yihiin. Waxaa laga yaabaa in dhimaanka oo mataqaanaa baahida suuqa ka jirta ay yar tahay oo sida aad rabtid wax u iibin karin. Marka xanibaadayaashaas kulligood adigoo ay ku haystaan wajahayo caqabado ay kugu yihiin ayaa haddana waxaad doonaysaa in aad faa'iidada aad meesha ugu sareysa gaarsiisid ama aad qarashkaada meesha ugu hooseysa aad gaarsiisid si aad hadafkaas u achieve gareysid oo contribution-kaada maximum uga dhigtid. Waxaa la adeegsadaa this technique oo lagu magacaabo linear programming. Programkan waxaa la adeegsadaa waxaa loo adeegsadaa laba siyaabood qaab oo graph ah oo sharax doona graph iyo qaab equation oo simultaneous equation ah. labadaas qaab ayaa loo kala adeegsadaa. tusaale yar ayaa meesha kusoo qaadanaynaa kambanigan wuxuu soo saaraa laba product oo A iyo B kala ah. labadan product waxay soo maraan production departments oo kala ah mixing iyo shaping. Mixing waxaa waaye isku qastaanka kana waxaa waaye tutusinta. Tusaale waxay sameeyaan nacnac ama la askaraxmo nacnac waxaa la soo qasay kadibna shape ayaa loo sameeyay. Okay, organization-kan objective-kooda waxaa weeye in contribution-kooda in ay maximize gareeyaan in mataqaanaa faa'iidadooda ay maximize gareeyaan way ujeedadooda. Haddaba waxaan la sii macluumaad dheeraad ah product-gan waxaa la iibiyaa intaan product B na waxaa la iibiyaa $2 kana $1.5. Dhimaanka oo product A iyo product B wuxuu dhimaanka oo product A waa unlimited oo ma xanibno laakiin product B wuxuu ku xaniban yahay 13,000 oo unit sanadkii. Machine hours-ka oo available-ka ah department kasto department mixing iyo shaping-ka wuxuu ayana ku xaniban yahay 2,400. relevant data kale waa la siiyay. Okay, waxaana la siiyay machine hours-ka ay u baahan tahay department mixing-ka iyo department-ga shaping-ka. Okay, product A wuxuu u baahan yahay 0.6 hours kana wuxuu u baahan yahay 0.4 hours. Product B wuxuu u baahan yahay 0.8 hours 0.08 hours oo mixing ah
is 0.12 hours oo shaping ah. kharashka markaas isbedelo oo variable-kana waa la siiyey product A variable cost-giisa waxaa waaye 1.3 kana 1.7. okay macluumaadkaas sii wadno so intaas macluumaad uu siiyey marka waxaa la rabaa inaad xalisid marka oo aad meeshaan ka soo saartid waxa ugu wanaagsan oo maaragtay ugu faa'iido badan oo meeqa product ugu faa'iido badan ay soo saari karaan oo product ah iyo meeqa product oo ugu faa'iido badan ay soo saari karaan oo product B ah. haddaba meeshaan waxaan ku fahmaynaa qaabka marka loo analyze gareeyo problemka hadda soo aragnay. step koowaad waxaa waaye horta bal inaad define gareysaa variables. variables waxaa waaye waxyaaba markaas aad adeegsanaysid oo aadan aqoonin. tusaale x iyo y ayaa inta badan la adeegsadaa laakiin wixii kaloo aad aragtid adeegsan kartaa. okay haddii aad dhahdid numberka units oo a oo soo saaray oo la iibiyey haddaa ugu magac darno x laakiin kalena oo b aan haddaa ugu magac darno y meesha waxa kaga soo baxayo just waa un xarfaha waxay ka caawin doonaan in hadhow equationka aad gelisid oo aad ku xisaabisid. marka it can be any number so you can just choose any number aa u baahan tahay any letter aa u baahan tahay to stand for the number of products of A and B oo aad soo saartay. okay qaybta koowaad waa midaas waa step koowaad wax weyn maahan you just defining the variableska. stepka labaad constraint-iga. constraint waxaa laga wadaa waxyaabaha ku xanibayo ayaa establish gareynaysaa. constraint waxaa laga wadaa wax kasta oo xanibo maximumka or minimum limit on the solution. waxyaabaha ama meesha ugu sareysa oo ku xanibto ama meesha ugu hooseysa oo ku xanibto ayaa laga wadaa. problemkan waxaa soo aragnay hore waxyaabaha xanibaya waxaa kamid ah demand-ka oo product B oo ku xanibnaa 13,000 oo kaliya in maaragtay in 13,000 oo demand-ka oo ka 13,000 iyo sidoo kale machine hours-ka oo shaping-ka iyo mixing-ka oo ayagana sidoo kale xanibnaa. haddii dib waxay ugu laabto dulqaata qiiman ku laaban karo. don't worry let me try ku laaban karo. okay ma ku laaban karno hore la socon karnaa bas. marka anyways ujeedada waxay ahayd in maaragtay fahano in step koowaad ay tahay in variable-kii la define gareeyo. stepka labaadna inay tahay in constraint-igii la markaas establish gareeyo. constraint-iga waxaa waaye waxyaabaha xanibayo maaragtay waxyaabaha xanibayo hadafkaaga iyo ujeedooyinkaaga. okay hadda marka problemka hadda aqoon kusoo aragnay oo tusaale ahayd ayaa xoogaa noo sii faahfaahiyey. waxaana marka intaa hore kolley waa akhrin doontaan laakiin waxaa rabaa kaliya inaad focus ka saaro inta ka bilaabato building programka sideedaba. waxaa kaloo jiro intaan inta u gudbin waxa la dhaho non-linear non-negativity constraint. non-negativity constraint waxaa laga wadaa value kasta oo ah x iyo y ma noqon kara negative sababtoo ah quantity or negative hameligeed. so it has to be positive. why? It has to be from here this quadrant of the graph. waxa inta ka jiro oo that side ah waa negative laakiin anaga just hadda productiga maadaama intana price ka tahay intana quantity ka tahay wax kastoo inta jiro oo positive marka waxaa la non-negativity constraint x iyo y. sidan ayaana u qormataa waxay u qormataa okay tusaale non-negativity x waxay noqonaysaa is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0. so these two
waxaa la dhahaa non-negativity constraints. intaan kaliya inaad qortid imtixaanka hal mar ay ku helaysaa niyada ku hay. markaan kasii socono xasuuso waxaan idhi each unit wuxuu qaadanaya 0.6 oo machine time ah. haddii 5 aad soo saartid marka waxay noqonaysaa 5 lagu dhuftay intaan oo machine time ah. haddii ka badan aad saartid sidoo kale ku dhufanaysaa. marka maadaama aan sameynay doonayn inaan ogaano any number waxaa isticmaalnaa x. so haddaad dhahdid 0.6 x hours ayay qaadanaysaa in aad soo saartid y. x waxay u taagan tahay marka number of units oo soo saaray, kana waxay u taagan tahay timekii. markaad ku dhufatid waxa kusoo baxayo productska oo a la soo saaray. sidoo kale b na waxay u baahan 0.8 haddaad ku dhufatid y oo numberka y oo soo saaray waxa kusoo baxayo waqtiga qaadatay. okay, marka total machine hourska loo baahnaa in the maximum department si loo sameeyo x units of product A and y units of product B saan ayay marka noqonaysaa. tan marka waxaa waaye waa stepki labaad oo la dhaho setting the constraint. okay, so tan waxay u taagan tahay 0.06 waa waqtigii ay qaadatay A, tanna waa numberkii ay soo saaray, tanna waa waqtigii ay qaadatay y b, tanna waqtigii waa numberkii oo b soo saaray. markaad isku dhufatid oo labadan isku dartid waxa kusoo baxayo waqtigii dhammaa oo maaragtay ay qaateen a b in lagu soo saaro. sida ognahay we all know this cannot be greater than 2400 hours sida loo sheegay oo su-aashan loogu sheegay. marka sidan ayaan u formulgeynaynaa. markaan isku darno waxaan leenahay less or equal to constraint in la c. so hadda kow waxaan soo aragnay step koowaad oo ahaa definitionka variableka, iyo stepka labaad oo ahaa constraintigii inaad cabirtid define the constraints or set out the constraints. labadaas ayaa hadda sameynay. stepka saddexaad ugu xigay markaas waxay noqonaysaa inaad xalisid. okay, intaad xalinin waxaa jiro objectiveka. okay, tusaale constraintigii oo hadda waxaan soo sheegnay oo mataqaanaa shaping departmentiga waa kasoo hadalnay. constraintiga kale oo asagana mataqaanaa fiskeynayo dhanka y-ga waa asagana sidoo kale ayaa mataqaanaa constraint gareynaynaa oo waxaan dhahaynaa 0.04 oo waqtigii x ah ay qaadatay iyo 0.12 oo waqtigii y ay qaadatay ah. markii labadan la isku daro waa inuu ka yaraadaa ama la ekaadaa amountiga available oo 24 hours ah. asagana sidaas ayaa loo qorayaa. okay, inequality ugu dambeeyo waa easy inaad obtain garaysid. waxaa waaye the number of units of B produced and sold has to be less than or equal to 13. so saan u qoraysaa iyadana y which is number of B u taagneed demand functionkeeda oo aad soo saartay oo iibisay is less or equal to intaan ayana saa u qoraysaa. waxaa kaloo baahannahay in activity aad intuu sheegayay oo ayadana saan u qoraysid. marka intaas markaa qoratid now waxaa samaysay you have maaragtay constructed the maaragtay constraintski. so waa define garaysay waa construct garaysay. now midda saddexaad stepka saddexaad oo baahan tahay waxaa waaye in markaas aad construct garaysid the objective functionka inta badan waxaa waaye waxa aad doonaysid inaad achieve garaysid. inta badan waxaa waaye waa contribution inaad maximize garaysid. marka ayadana waxaa sameynaysaa contributionka waxay noqonaysaa the maximum contributionka ayadana waa define garaynaysaa. waxaan u define garaynaysaa sidii aan kor soo sheegnay si lamid ah.
stepka afraad waxyar isug marka waxbayaan sheekh badan ku daalinin waxaan ka hadlaynay linear programming. Okay, linear programming waxaa dhahnay kow waxa waaye waa qaacido la adeegsado markii aad wajahaysid waxyaabo xanibayo awoodaada wax soo saar. waxyaabaha ku xanibaya waxay noqon karaan material ama labor ama machine hours ama demand. intaas mid ka mid ah ayay noqon karaan. Okay, steps ay jiraan marka goormee la adeegsadaa. waxaa la adeegsadaa markii two or more limiting factors ay jiraan. Okay, markaas baa la adeegsadaa. Okay, ujeedada loo adeegsada maxaa waaye kow to maximize profit. labo inaad faa'iida maximize garaysid. labo to minimize costs. Okay, steps maxaa waaye markaasi u baahan tahay inaad maaragtay xalisid problem ku face garaynayo si ujeedada u gaartid. kow steps of linear programming aan dhahno 5 xabo ayaa u kala qaadaynaa. step koowaad waa we have to define the variables. waxaa wadaa problem waa lagu sheegay marka si horta xal u helisid you have to inaad dhahdid let a b let b represented by x. waa just tusaale waxaad dhigin kartaa tana by y. midda labaad soo kow waxaa define garaysay variable waxaa isticmaalaysaa define garaysay oo problemka ku isticmaalaysa oo xalin doontid. midda labaad you construct the constraints. Okay, waxaa lagu siiyey a wixii laga soo saaray iyo b wixii laga soo saaray tusaale 0.6 x tusaaleheeni plus 0.8 y wixii markaas xanibayay less or equal to let's say 2400. taas waa midda koowaad. tan labaadna let's say 0.3 x plus 0.12 y is less or equal to let's say 3200. Okay, stepka saddexaad marka demand which is equal to y is tusaale waxay noqonaysaa is less or equal to 300 camal iska dheh. kan kaleetana non-negativity constraint waxay noqonaysaa y is greater or equal to 0, x is greater or equal to 0. so sidan ayaa waxa uu construct garanaysaa problemka. nambaradan waxay ka imaanayaan example-ka lagu siiyey. haddii real life ay tahayna oo maaragtay dee fieldiga joogtid waxyaaba markaas dee factska oo mataqaanaa datada xaqiiqada markaas jirta haddii imtixaan ugu jirtid waa ugu siinayaa in the problem. so all you have to do is just to introduce the variables of x and y and then
formulate the problem, and stepka markaas ku xigo waxa waaye in our contributionka step 3 waxa waaye define nationka or contributionkaga, define objectivekaga inaad define garaysid. Okay, marka objective let c equal to contribution. c waxaa dhahaysaa alternate contribution, kadib waxaa dhahaysaa c equal to the maximum, waxaad ku daraysaa labadan. So tusaale was tan waxaa u badneyd 0.08, tan kalena 0.12, intaasay noqonaysaa contributionkaga. And this waxay ka tahay ama ay like tahay, let's say 4800 waa lagu siin doonaa problemka tusaalaha. Okay, now you have all the equations. waxa kaliya marka waxa waaye in aad xalisid oo aad solution ka gaartid. Solution ka soo gaaraysaa midda koobaad oo kugu horeyso, if it was 0.08 plus 0.08x, now let me say and 0.04x plus 0.08y is equal to 2400, ama hadday ahayd tan kaleetana ay ahayd 0.06x plus 0.12y is equal to 3200. dirtina marka aad tan xalisid ko waxaa sameynaysaa you have to make one of them equal. You have to make either y equal or you have to make x equal. Anaga marka waxaan dooranaynaa in equal ka dhigno. Okay, make this 0.03 to make it easier. Okay, inta haddii aan rabno inaad isku mid ka dhigno waa inaan hal number aan ku dhufanaa. So tan isku noqotaa. So tan waxaan ku dhufanaynaa times 1, tanna times 2. Tanna times 2 ku dhufatid waxay noqonaysaa 0.06 plus 0.16 is less or equal to 4800. Okay, tanna sida ay joogaysaa 0.06, that's x, and this is y, plus replacement them 0.12y is equal to 40, 30, 3200. Okay, marka waxaa sameynaysaa equationkan koowaad ayaa waxaa ka jiraysaa equationka revise garaysay. This is the revised one, right? And this is the original one. So kala jar marka just minus ku samee. So 0.06 minus 0.06 was 0. 0.16 minus 0.04. So this is going to be 0.04. waxaa noqonaysaa 48 minus 32. This is 0061, right? So, and this is y. So if you want to find out y, you'll have to divide 0.04 on both sides, and it cancels out. So this is times 100 to remove the decimal, so times 100, so it's going to be 16 with 4 zeros divided by 4, 1, 4, so that's going to be 40,000. So y is going to be 40,000. So now you have the value of y.
So now we need to find the value of x. Okay, waxaan u ordayna waxa waaye in problemkii aan soo introduce gareynay oo x y ahaa in aan soo helno. So now we found x. Now for us to find y, now we found y. For us to find x, we just need to inaan ku substitute gareyno booskii ay ku jirtay. So we just need to take one of the original equations. So let's take this one. Okay, let's take this one. So we had 0.06 and x, okay, plus, instead of y now, 0.12 instead of y, we say 40,000. And then we'll find now, and we say this is equal to 2400. So if you multiply this by this, you get a number, and then so this is, let's say you got, just you have to do it. I don't have to calculate with me now. Like in the calculator has done what's make that. We have also let's make a number like 3000 actually. So waa kala jaraysaa kadib x u qaybinaysaa kadib waxa u qaybinaysaa 0.06 and then waxaa helaysaa the value of x. So now you have the value of y and you have the value of x. Waxa u baahneen waa labadan haddii aad heshay, you just come to the contribution meesha ahead and then you substitute these values for x and y. Wixii kaloo qooriya ku dhufanaysay kadib waxaa helaysaa contributionka wuxuu yahay, and sidaas ayaad ku xalisay problemkii. qaybta labaad ee xigto waxaan ku saagi doonaa inaan sharaxaad yar oo kooban ka bixino graafka. Waa ku mahadsantihiin. This is just mentoring, maahan in baray sida loo sameeyo. I'm sure waad taqaanaan intiina markaas baasi garanaysa ama baranaysa korsadan meelaha just triga ay ku jiraan iyo sida loo xaliyo ayaan inta kalaankiga la wadaagay. Aad ay u mahadsantihiin. Waa ku mahadsantihiin ku xirnaanta ku xirantihiin pagekan oo ah pagekiinii. Waxaana dhawaan soo wadnaa casharo kale oo ku saabsan units kale ee qeybooyin kale ee SCCA-da. Aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.